madaxa sare ee sirdoonka Masar Abbas Kamil markii uu booqashada ku tagay Israa'iil iyo gobolka Gaza si uu u soo indho-indheeyay xabad joojintii u dhaxaysay Falastiin iyo Israa'iil waxay saxaafaddu u kala tartamaysay sidii ay muuqaal uga heli lahaayeen laakiin hal mar ayuu arrinku isbedelay markii ay kaamaraduhu qabteen ciidamo gaara kuwaasi oo weligood ka soo muuqan shaashadaha warbaahinta marka laga reebo hal mar oo hore waxaynay ahayd markii ay ka soo degeen diyaarad ka timid Liibiya waxayna wadeen qofkii koowaad ee ay Masar ugu doondoonka badnayd laguna magacaabi jiray Hishaam Ashmaawi waxaanay ciidamadaasi hoos tagaan sirdoonka Masar waxaana lagu magacaabaa ciidamadan GIS loona soo gaabiyay General Intelligence Security howlgallada ay qabtaan ciidamadani badankoodu waa qaar sira amaba aan la shaacin waxaanay ka shaqeeyaan la dagaalanka argagixisada iyo faragelinta degdega ah waxaanay ciidamadani ku caanbaxeen tiro yaraan iyo waxtar dowladda Masarna ma adeegsato ciidamadan howlgal weyn mooyaane gaar ahaan sugidda madaxda sare ee dowladda ama soo qabashada dadka ay dowladdu daydayayso ee ku eedeysan falalka argagixisada waxaanay ka qayb galaan howlgallada sahaminta iyo baaritaanada qarsoodiga si ay u ilaaliyaan ammaanka Masar ciidamadan GIS waxa lagu tiriyaa ciidamada ugu caansan ee danaha nabadgelyada Masar walibana had iyo jeer diyaar ah sidoo kale waxay qaataan tababaro adag kuwaasi oo iskugu jira qaar jirka iyo qaar nafsiyaba waxaanay ku hadlaan ugu yaraan 2 luuqadood waxaana sidoo kale la baraa basaasida samaynta waxyaabaha qarxa badbaadinta diyaaradaha la afduubto sugidda ammaanka dadka xilalka sare ka haya dalka Masar iyo furashada dalaayadaha ee lagaga soo dega masaafooyinka dhulka u dhow iyo ku dagaalanka dhammaan hubka si taalamida waxa loo tababaraa dabagalka howlgallada argagixisada iyo sidii ay dambiilaha ay soo qabtaan ammaankiisa u sugi lahaayeen ciidankan GIS waa ciidan hoostaga sirdoonka dowladda Masar laakiin waxay si toos ah uga amar qaataan madaxweynaha ama madaxa u sareeya ee sirdoonka waxaana ciidamadan la aasaasay sanadii 1954 si ay u kaabaan sirdoonka Masar waxaana aasaasay Jamaal Cabdi Naasir waxaanay ciidankani raaceen markii ugu horeysay oo ay ammaankiisa sugeen madaxii ugu horeeyay ee sirdoonka Masar Sakariya Muxiyadiin wuxuuna ciidankani ku jiraa 10 ciidan ee sirdoonada caalamka ugu horeeyay waxayna ka qayb galeen dagaalkii Oktoobar ee u dhaxeeyay Israa'iil iyo Masar waxayna ka shaqeeyeen howlo basaasineed iyo sidii Israa'iil dhabarka looga toogan lahaa